السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وداش قيمة يقدرنا تمدلوا ملك استوديو تعرفين كل كتان كسور دوالة channel كعب ساقيك official ولا الكعب ساقيك أو كعب سنية فضلا إنها سبسكرايب تلاقي تشير تي وكومنت تيجي عاد كسو يا عصو نعلى شيء دام في الوالك شيء نحولي وحاسي واحد دوا وينسكوي بعدين ما مالك استرس اسودي سنة ما أنت برنامج كذي هاي صدق عوانك وقرأت كارك دونتان وحوي guurka Ilhaan Cumar oo buuq iyo qaylo iyo sawaxan iyo isjiirjiid iyo mataqaana aflagaado iyo cay iyo qabiyaalad iyo belo ka dhaliyay baraha bulshada ee ay ku kulmaan dadka Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan uga falceliyay guurka xildhibaanada dalka Mareykanka ee Soomaaliyeed gabadha lagu magacaabo Ilhaan Cumar maxaad kala socotaa xaqiiqooyinka ay ka qoreen saxaafadda Mareykanka iyo waxa iyadu soo dhigtay barteeda Twitterka iyo waxa iyadu ay soo dhigtay markaas barteeda Twitterka oo ay iyadu ku sheegtay ku shaacisay guurka ay muddo weegan mataqaana bilowgiisii ay shaacisay inay guursatay wiil American haddaba xaqiiqada siday tahay Soomaalida siday uga hadashay iyo waxa jira iyo wixii xaqiiqa saad ogtihiinba anu horta meehi qof runta ka gabada ambaasha qarqariya farta inaan ka saarno farteedi ka saarno ku soo dhawaada channelka haddaad ku cusub tahay mar kale waxa ka codsanaysaa in xariis lina subscribe saarto like-na tiraado wixii comment aad noo haysanaad hoos noogu reebto wixii mataqaana share hadaad ugu caawi kartana alxamdulillah hadii kalena rabbil caalamiin soo dhow marka koobaad Ilhaan Cumar oo ah sanatarad xildhibaanad Mareykan ah oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Soomaaliya ayaa waxa sanado ka hor lagu doortay magaalada Minnesota ee gobolka Minneapolis ayaa lagu doortay oo mataqaana halkaas ay Soomaalidu ay ku badiyeen ayaa waxa ka heshay xubin xildhibaannimo inay ku matasho aqalka cad ee Mareykanka halkaas oo mataqaana gabadhaasi ay ku soo caan baxday xisbiga dimuqraadiga oo laga soo doortay oo ay ku soo caan baxday dhaqdhaqaaq fara badan iyo mataqaana hadallo dhiiran oo ay jeedisay oo ay kaga soo horjeedo ninka haysta dalka Mareykanka ee loo yaqaano Master Donald Trump ninkaas oo ay ka soo horjeeday oo mataqaana hadaladiisa qalafsan cunsuriyada islaam nacaybka waxyaalaha noocaas ay ka hadashay ayaa waxay ka noqotay baraha bulshada ama meelaha lagu kulmo waxay noqotay qof la yaqaano oo wajigeedu uu caan yahay oo meel kasta ka muuqato xildhibaano kula sugan golaha Mareykanka waxaad moodahay golaha Mareykanka hadii la tawakaliyo caalam noqonayo no dad badan oo xildhibaano oo golaha Mareykanka kula sugan golaha baarlamaanka Mareykanka inay ka caansan tahay oo ay ka mataqaana saameyn badan tahay taasina waa hadaladeeda cad iyo dhiirinadeeda aanu guda galo Ilhaan Cumar waxa isqabeen wiil Soomaali oo lagu magacaabo Axmed Xirsi oo isku dhaleen 3 ciyaala aan maleynay 2 gabdhood wiil hadana qaldanin sina 3 gabdhood hay markaas wiilka Axmed Xirsi ay isqabeen oo markii hore ololaha doorashada kula jiray mataqaana maalinkii guuleysatay waad ogeydeen oo jiray dadku amaani jireen wiilgeesiya garab taagan kan wiilkii sida mataqaana iska caadiga calafkiiba u kala dhamaaday waana isfureen waana kala tagin waxa laga yaabaa qaarkiina tiraadiin waxa wax laga hadlama way Soomaalidu dhan baa ka hadlaysay adoo ka hadlayay naga hadlama rabtid in xaqiiqada mataqaana warka mid loo jajabiyo oo wixii xaqiiqada la soo saafo lagu hor dhigana ma rabtiin way Soomaalidu wasaqana saxaafadda dhan ka hadlaysay adduunka dhan ka hadlay marka wixii jira iyo wixii mataqaana TV-da ka daawan waxaan soo akhrinay mataqaana iyo wixii intaan ogeyn waa inaan iyadoo saafan aan umada la wadaagno anigu maalinka koowaad baan ka hadli karay laakiin waana macluumaad ururiso si dadku wax ugu sheegto dadku wax iskaga sheegi kartaa adigoon macluumaad ururin marka Axmed Xirsi oo ay Ilhaan isqabeen oo wiil Soomaali ahaa sida mataqaana caadiga hadii labada qof isfahmaan way kala tagaan ma sheegi kartid mana ogaan kartid waxay ku kala tageen laba qof oo isqabay laakiin hasa ahaatee calafka ka dhamaaday waa kala tageen Ilhaan Axmed Xirsi wuxuu guursaday muddo kadib maaqan bil ku dhawaad kadib isagu wuxuu guursaday gabadh Soomaaliyeed ah oo halkan sawiradoodii soo dhigi doono bartaad ka aragtaan gabadh Soomaaliyeed ayuu guursaday iyo xajka todobabaxoodii xajka ku soo todobabaxay xaramka ee ku soo todobabaxay okay well done wala hambaliyay waxa la waad guursatay waxa weey okay Ilhaan Cumar hadaba waxay guursatay 38 jir u dhashay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Timothy Maynard lagu magacaabo ama loo soo team Maynard bay ay gaalo soo gaabiyaan team la dhaho magiisa waa Timothy laakiin team la dhaho ay soo gaabiyaan gaaladu ayay guursatay wiilkan Timothy wuxuu u joogay xafladii
iyo mataqaana ololihii campaign-kii Ilhaan Cumar ay ugu tartamasay xildhibaannimada ayuu qayb lixaad la ka qaatay saxaafadda Ingiriisku saxaafadda Mareykanku waxay sheegeen $230,000 inuu isagu amaahiyay oo uu ku soo saaray Ilhaan Cumar ololaheedii way ololaha wuxuu u baahan yahay lacag wuxuu u baahan yahay qarash mataqaana in la ololeeyo oo boor la sameeyo oo meel la tago oo gawaari la kireysto oo magaranaysa dadka wax la soo print gareeyo oo dadka wax laga dhaadhiciyo kadib markii ninkaas ay mataqaana ay ninkaas shaqadiisa horta waa nin 80 jira wuxuu furay gabadh 50 jira oo ciyaal u haysa oo mataqaana Mareykan oo cadaana ay isfureen April 7 April 2019 ayay isfureen oo sanadkii tagay ayay gabadhaas isfureen oo kala tageen kadib jacayl u qabo Ilhaan Cumar oo ogaatay kadib Ilhaan Cumar wiilkan muddadaas wixii ka dambeeyay markuu soo saaray oo kharash gareeyay oo fangareeyay wuxuu amaahiyay $30,000 buu amaahiyay oo dollarka Mareykanka kadib wuxuu markay yarkan Mareykanka iyo Ilhaan waxay isku qaadan jacayl yarka Mareykanka wuxuu ka tirsan yahay xisbiga dimuqraadiga waxaana uu qaabilsay qaybta istiraatiijiyadda ama qaybta qaabaynta habaynta dejinta jidka weyga wax ay ku soconayso xisbiga dimuqraadiga ku soconayo ama wax doorashooyinka iyo campaign-nada iyo waxaas qaabka wax loo wajahayo qaabka mataqaana waa dadka dejiyo waa shaqadiisu waxa la dhahdaa strategist baa la dhahaa marka wiilkan Ilhaan Cumar waxay isguursadeen weegan bilowgiisii oo muddo xiriirkoodu soo socday waxay ku dhawaaqeen inay isguursadaan hadaba su'aasha meesha timid waxay tahay team oo 38 jir Mareykan ah oo cadana baa Soomaalidu waxay ka keentay Ilhaan Cumar markay isguursadeen waxay ka keentay hadal team ma yahay nin muslim ah maadaama diinta islaamku ayna ogoleen in gabadh ay guursato nin kristaana raguna haduu gabadh kristaana u guursado la siiyo 3 bilood inuu ku soo islaamiyo wixii ka badan hadii uu 3 bilood ku islaamiyo inuu xaraan ku qabo ma yahay team nin islaama okay Soomaalidu waxba isla dhex kaceen waa iscaayeen waa iskaleen waa istagaaleen xaggan ay ka baxday xaggan qabeelad balaayo isku soo wada duubo Ilhaan Cumar Twitter-keedii iyo Instagram-keedii Soomaaliba ay uga buuxisay rag u badan dumar u badanna hambaliyay dhaheen iyaguna waxba hubsan waxbana weydiin waa hambaliyeen waxay yiraahdeen sidii Axmed Xisbaan oo hambaliyeen aynu hambaliyeyno ragina waxay yiraahdeen waar waxa uga dhigina iyo dumarka qaar kamid waxay yiraahdeen waxa uga dhigina marmarsiye nin Axmed Xajku ku tolto baxay gabadh Soomaaliyeed guursaday gabadhan ninka aday guursatay ee Mareykankii soo gaal maaha yaa ogol diinta u baneys okay bali dabadeed waxa la isla gartay Ilhaan Cumar waxay jawaab waxay ka bixisay halkan baan soo dhigi doonaa bartaka eega akhrista jawaabtay ka bixisay waxay sheegtay inaysan ninkan iska guursan xal ilaa uu islaami isfahamna team oo ah ninka cusub ee Mareykanka seedigeena cadaanka Ilhaan qaba wuu muslimay wasay noo sheegtay anu video ma arkin meel ku islaama sheegin Wikipedia diintiisa kuma arkin wax diintiisa Wikipedia qoray saxaafadda wax ma qorayso laakiin iyadu waxay noo sheegtay inuu islaam so okay anagu qofka inaan isaga aamino isaga Ilaahiis inaan isaga aamino way hadii qofku islaam yahay hadaba ujeedo aad ma taqaana ku canaaran karto oo ku caay karto ma jirto haba yaraato haba weynaato ujeedo kale oo ku caay karto hadii ay gabadhu qof islaam haduu qabo ama cadaan ahda madow haado kuwa aan islaam hayn ba qaba waa rag Soomaaliyeed sheegan jiray ba qaar laga roon kuwa rag Soomaaliyeed nala sheegta ba qaar laga roonayay lihiin qaar niman cadaan ay qabaan oo diin u baneysay aysan jirin la korkoro oo ma taqaana boqolna calood ka muuqdaan oo ma taqaana ay gay khaniisnimo ku biireen gabadh Soomaaliyeed oo hooya oo 3 ciyaal haysata hadii nin ay ma taqaana waliba uu islaamay oo la koridayo oo uu guursaday walaasha oo laga guursaday oo nin islaami guursaday cadaan ahaado madow ahaado Asian ahaado Korean ahaado China ahaado Ilaahay uu mu ahaado gambeelaba sheegaysa ku ugu timaha adag la mu ahaado Afrikaan wuxuu doonaha ahaado hadii uu mar guursaday kaliya anagu hadii islaam ninkaas yahay waxa naga go'an inaanu hambaliyeen ما هنا واحد جري سكوك قبضتان وكسميسان إيشوات كديكتان وكيسس أنجرين يبرر قرر ميلا أنجرين حق نبودان كل بكتيرك ماذا حكوا قرعان لا ما باهنا بليز سيستر أند برادرز وحلا إذن كربا إن قفك احترام تانجو أنكيس هدو قفك إن هدو قفك وا إسلامي
وإسلام نيها إسكورسدان لبدا قف كلية وحي كاغا باهين أديك دعو هدان دو دعين كرن هدان دربين هدان عسوري تاي شد أفكا غير قبص وبالله التوفيق وركبوا وين تا اسبق لنا وضيع عبد الساق ظاهر ويدن له بيس اند لوف channelka subscribe تاكيل